السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada walaalayaal haddii aad ugu cusubtihiin biliis waxaa idinka codsanayaa inaad subscribe ka saartaan videogana aad meel dheer gaarsiisaan markii intaas laga soo gudbo warbixin ku saabsan wadanka Mareykanka doorashada maadaama ay soo dhamaatay yacni maxaa ka soo baxay doorashadii kadib doorashadii Trump inkastoo doorasho aad u xanuun badan ay ahayd oo ilaa haddana insha Allah khayr ilaahay xaggiisa laga rajaynayo laakiin warbixinada ka soo baxaya wadanka Mareykanka waqti xaadirkan waa warbixin fiican ma ahan warbixintaasoo saameynaysa dadka soo galootiga ku ah Mareykanka yacni wixii hore ugu ahan jiray iyo waxa cusub oo hadda maxaa la dhahay tageen laakiin waxa hadda lasoo qaadan doono weli lagama hadlin markaa u gudgalo dadkii hore ku ahaa yacni waa dadkii dhalashada haystay oo laga yaabo 10 sano inay joogaan ama 5 sano ama ka badanba laakiin soomaalida dhexdeeda inay iska shiftay arrintan ay soomaali yacni kulli Mareykan dad intaasoo sano fara aan ka soo bixin oo waxba ka soo bixin in hadda la dhaho hadda iyo kuwa lidin baaraa haddii fara ayda ka soo baxaan waxaa dib kugu celinaa wadanka ka imaateen waxaa waa arrin yacni dad badan ay ka dambeeyaan waa arrin soomaalida dhexdeeda ay iska shiftay dadkaasoo ka mid ah dadka Kenya ka baxeen oo ku leeyahay baasboorro oo Kenyaati ah oo deganaasho yacni deganaasho ma ahan dhalasho baasboor haysteen oo hadda soomaalida dhexdeeda intay iska shiftay Mareykanka uu dhahay dadkaas waa baaraynaa haddii ay soo baxaanna dib ayaan ugu celinaynaa wadankii hore ee deganaashaha ay ku lahaayeen maxaa la dhahay ayagoo dadkaas laga aaminsan yahayba inayba yihiinba dambiilayaal yacni waxaa waaye wadan hore aad ku aaminay dhalasho ku siiyey adigoo khiyaantay oo wadankii ka tagtay soomaalida wax caadi u malayaa laakiin adduunka waxay ka tahay dembi qodob koowaad intaas waaye qodobka labaad waxaa waaye dacwadii oo maxaa la dhahay xaaska ahayd in la kansalay taariikhdii shalay 13 markay ahayd oo go'aan cad laga soo saaray in la qaadi doonin nin iyo naag dambe oo isqabo oo Mareykanka maxaa la dhahay la joojin doono yacni dacwadaas khalaas waaba la istaajiyay hadda wixii process hore ugu socday iyo wixii hadda loo bilaabi lahaaba stop aa la dhahay waa la stop gareeyey markii intaas laga soo gudbo arrinta ku saabsan dadkii darbiga kasoo boodeen ayadana la howlgalay dadkaas oo la howlgalay oo lugaha loogu xiray kaamirad yacni oo lagala soconayo meel kasta yacni musqul hadday galaan kaamirad waxaa waaye ceebteeda wadato waxaa musqusha meel kasta ma iska furi kartid way lugtay kugu xiran tahay meesha yacni xaaladaada la rabaa in lala socdo so marka dadkaasoo lagu bilaabay in lugaha loogu soo xiro si loola socdo xaaladooda si ayna wadanka uga bixin oo markii diyaar loo soo noqdo in la tarxiilana la tarxiilo warbixinta afaraad waxaa waaye ninka ugu cunsurisanaa oo Mareykanka oo Trump la shaqeeyey maxaa la dhahay 4 sano hore uu Trump u haystay in uu haddana dib u doortay yacni waxaa waaye xaaladda ilaaha sakhiraan leenahay so haddii aad waxaan ku dhahay warbixinadan oo kaleetana aad ku haysato commentiga noogu soo qor videogana meel dheer gaarsii walaal